السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتا دمان كحرم بيتك صومالي تجابتوني كوب وحاني لينا هاي رمضان كريم رمضان مبارك يعني لينا هاي كسو دواد موقال كان فالله هدي أتكي شي موقال كان waxaa waajib ku ah in aad muuqaalkan like saarto si ay u gaaro dad badan. Waxaa kaloo ni ogeysiinaya walaalayaal waxaa jiro tartan uu galayo walaalkeena ee Cabdirashiid wareegii labaad ayaa soo tartankaas ayaa rabaa inaa u celeysiin marka walaalayaal tartankaas uu codeeyay diinahay tartan waa Soomaali inuu kor u qaado oo u codeeyo. Okay maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay sidee ku ogaa kartaa micnaha waxaa jiro cilmi la yiraahdo cilmiga wajiga qofka wajigiisa wuxuu ka turjumayo ayaan sheegaya qofka wajigiisa wuxuu ka turjumaa maxaa jiro qof oo wax la yiraahdo cilmi nafsi qofka la sheegayo shakhsiyadiisa iyo wuxuu ka turjumayo maanta waxaan ila wadaagayaa qofka dheer iyo qofka gaaban waxa ay ka kala duwan yihiin qofka dheer iyo qofka gaaban waxaa jirto laba ayaa loo talagaaday qof dheer iyo qof gaaban qofka dheer waxay badanaa dad ku tiriyaan qof maxaa la jiray xishood leh fiican maxaa la jiray karaamo bulshada ku leh qof fiican oo maxaa la jiray naxariis badan waxaa ku soo hartay qofka gaaban rag iyo dumar xataa madoo qofka gaari qofka gaaban way bil aadan oo dhan xayawaanada xataa way ka siman yihiin wax oo ilaahay abuurtay oo dhan way ka siman qof dheer iyo qof gaaban geedka xataa ka siman geedka dheer iyo geedka gaaban okay waxaan sheegay geedka dheer kan gaaban waa qof xaasida oo naxariis lahayn oo karaamo lahayn qof xaasid ayaa loo tiriyaa qofka gaaban waxaa loo kiriyaa qof xaasid aan karaamo lahayn meeshaas ayuu lagu egyahay. Assalaamu calaykum.